waxaan rabaa inaan horta reer banaadir ugu hambalyeeyo inay soo noolaatay waxbarashadoodii in muddo ah dansanayd isla markaas soo noolaansho kadib la tayeeyey ay taabo qaaday. waxbarashada waa furaha horumarka, waa wax la hubo inaan la-aanteed horumar la xaqiijin karin. mudanayaal iyo marwooyin, maantay waxaan doonayaa halkan inaan uga dhawaaqo guddoonnada waxbarashada ee gobolka banaadir ee 4 qaybood ah inay si rasmi ah u furan yihiin. guddoonnadaas ma aha wax cusub, way jiri jireen berigii dowladda dhexe ayay jiri jireen, waana xilligii waxbarashada tayada leh ee maantay inta ka nool bahdii waxbaratay ee dowladdii xilligaas jirta ay bilaash wax ku bartay ay soo gaarsiiyeen inta kale ee maanta wax taqaan. guddoonnadaas 4 ah waxay kala yihiin guddoonka waxbarashada galbeed, macnaheedu waxa waaye degmooyinka galbeedka xiga ee gobolka banaadir iskuullada ku yaalla ayaa maamul ahaan hoos imaan doona. guddoonka waxbarashada waqooyi ayagana degmooyinka waqooyi ku yaalla waqooyiga muqdisho iskuullada ku yaalla ayaa hoos tegi doona, waa meel kale iyaduna, halkan maaha. guddoonka waxbarashada bari dugsiyada degmooyinka bari dhaca ku yaalla dhinaca bari ee magaalada degmooyinka dhaca iskuullada ku yaal ayuu maamuli doonaa oo uu ka warqabi doonaa. guddoonka bartamaha degmooyinka bartamaha ku yaalla magaalada bartamaheeda ma dhexdeeda degmooyinka ku yaalla iskuullada ku dhex yaalla ayaa loogu talagalay inuu isaguna si hoose u maamulo. hadafkeennu ma aha intaas oo keliya, waxaan doonaynaa in lasii daadejiyo oo ilaa heer degmo lasii gaarsiiyo. taasi waxay sahlaysaa isku xirnaanta iyo ka warqabka ardayda iyo macallimiinta tayada waxa ay ardadu ay baranayaan iyo sida habkooda waxbarashada uu yahay. mudanayaal iyo marwooyin, suuragelinta howlahaani ma ahan howl fudud ma aha, dadaal badan baa loo soo galay, mid ka sii badanna waa naloo kaga fadhiyaa haddii alle. waxaad og tihiin muddo hadda sanad ka hor ah inaan la soo wareegnay oo maamulka gobolka banaadir oo dowladda wasaaradda federaalka uu kala soo wareegay waxbarashadii ee dugsiyada gobolka banaadir uuna gacanta ku hayo oo uu maamulayo. isla markii waxaa muuqata oo markhaatiba doonto ah inay isbeddeshay tayadii waxbarashada, taasoo imtixaanka dowladda federaalka ah ay qaado nambarkii dhacay sanadkii hore nambar haaf ama nus ka yar ou dhacay sanadkan hadda. ma ahan iyaduna wax iska yimid, waa wax nafur iyo dadaal iyo dhafar badan lagu sameeyey. waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, halkan waxaa jooga brofesoro PhD holder ah, darajada ugu sarreysa waxbarashada haysta, ee aan hal shilin qaadan, keliya u taagan inay horumariyaan
ubadkeenna xagga waxbarashada iyagoo fahmi kara muhiimadda ay mujtamaca u leedahay bulsho waxbarati. waan uga mahad celinayaa, waxaana u sheegayaa haddaynaan wax u helin inaanaan ilowsanayn oo aan goobo badan ka sheegi doono, balse aanba jecelnahay inaan xuquuq u helno. walaalayaal, xarunta dhexe ee waxbarashada gobolka banaadir waxay ku taallaa xamarweyne. halkaas ayaa ahayd meesha degmo walba ay uga timaado oo adeegyada loogu fuliyo, balse si loo soo dhoweeyo adeegga waxbarasho ayaa 4 qaybood oo gobolka banaadir ayaa la keenay adeeggii. dadkii ka shaqaynayay professionalka ahaa u tababarnaa aqoonta u lahaa ayaa xaadir ku ah. uma baahnid marka haddii aad tahay guddoonka galbeed inaad usii gudubto xamarweyne, halkaana lagaga fulinayaa adeegyadaada. sidoo kale adeegyada kalena waa la mid. waxaan gaaraynaa marka haddii alla idmo in xarunta dhexe ee xamarweyne ku taalla arday kasta ay tiknolojiyada iyadoo la adeegsanayo ay ka ogaato halkaas, yacni inta uu soo xaadiray, inta uu maqnaa, iyo qiimayntiisa waxbarashada intaba. taa waxaa noo dheer inaan u soconno waxbarashada inaan gaarsiino yacni ilaa dugsiga hoose dhexe marka hore, kadibna dugsiga sare inuu noqdo lacag la-aan. meesha aan u soconno waa halkaas. arrintaas arrin fudud ma aha, maxaa yeelay 10,000 oo macallin oo mushaarkaaga baahan, qarashkii iskuulka, qalabkii iskuulka u baahnaa hadday tahay kombyuutarada, sabuuradihii, miisaskii, kuraastii lagu fadhiisanayay, maintenancekii ama dayactirkii gacan ku-hayntii, waxaasoo dhan wax fudud ma ah, laakiin waan ku dhiiranaynaa, waana gaaraynaa haddii alleed. waxaa jira sida aada og tihiin carruur Soomaaliyeed oo nolosha ka dhacday, oo gidaarada jiifa, oo eeyaha la hurda, oo aan cid daryeeshaahi jirin, oo ay waalidkood si uun isu waayeen, ama waa dhinteen, ama waa caasiyoobeen, ama waa waxba uguma yaalaan ama quudin karaan. kuwaas ayagana waan ka ururinay magaalada, waxaan ku xaraynay meel gaar ah. inta noo hartayna waa sii dhammaystiri doonaa. waxay ku soo biiri doonaan haddii alla idmo kuwa hadda isduraya, daroogada kala duwan isticmaalaya, bahda waxbarata ee xaragoonaysa, ee iyaguna ubadka dambe wax sii bari doona ayay gaari doonaan insha allah. waxaa noo furmay sanad dugsiyeedkii 2021 2022 ayaa noo furmay. iskoolada hadda si caadiya ayay u furan yihiin. waxaan rajaynayaa marka sanadba sanadka ka dambeeya inay muuqato isbeddelka waxbarasho taya ahaan iyo tiro ahaan. taya ahaan waa la fahmay oo waa tana daba dhacday in dadkii dhacaya ay soo yaraadeen. tiro ahaantuna waa badanaysaayo waxbarashada in yar ayaa qoyska waxbarashada u aadi jirtay, maxaa yeelay qoysku ma awoodin inuu carruurta dhan iskuul usoo diro oo ka bixiyo lacagta. haddiise la yidhaahdo waa lacag la-aan ama lacagta yacni wax aada u yar waaye haddii la yidhaahdo, oo aan jecelna inay lacag la-aanba noqoto, qoys walba wuxuu awoodi karayaa inuu cunugiisa usoo diro waxbarashada. taas ayaa badinaysa tirada ardayda insha allah. waxaan rabnaa marka tallaabtaan hadda aan qaadnay inay noogu xigto diiwaangelintii macallimiinta. maadaama iskuulladii la furay, macallimiinta waa la diiwaan gelin doonaa.
kadibna waa la imtixaamayaa heerkii aqooneed ee ardayga ubadka Soomaaliyeed waxa uu barayo isagoo horta garanayo. marka la xaqiijiyo ayaa loo furayaa tababar macallinnimo ama waxa la yiraahdo way of teaching. intaa kadib ayaa loo ogolaan doonaa inuu macallin ka noqdo mid ka mid ah iskuullada gobolka Banaadir. intaas kuma eka, waxaa jiri doona kormeerayaal joogto ah oo macallinka akhlaaqdiisa, ardayga akhlaaqdiisa, habka macallinku uu soo jiidanayo qulubta ardada, waxaasoo dhan yacni qiimeyn doona. aqoonta adiga kugu jirta, waxbariddu wax fudud maaha. aqoonta adiga kugu jirta ayaa waxaa rabtaa inaad soo bixiso oo qof umi ah ama waxna aan qorin waxna akhrin inaad ku rakibtid gudihiisa, inaad ku rakibto ilaa uu ka soo gaaro meeshaad adiga joogto ama uu sii dhaafo. taasi wax fudud ma aha. marka waxaan la doonayaa marka dadkii awooddaas lahaa ee suuro gelin lahaa hadafkaas inaan diiwaan gelinno mar dhow, imtixaan laga qaado, tababar loo sameeyo, kadibna ay shaqadoodii ay bilowdaan. intaas marka waa tallaabaha hadda aan qaadayno. tallaabaha noo yaalna ma ahan intaas, waa sii badan yihiin. diiwaangelinta macallimiinta kadib ayay bilaaban doontaa si rasmi ah macallin walba inuu helo ID lagu aqoonsado. waa macallin ka tirsan guddoon hebel, gobolka Banaadir, dugsi hebel. ID-gaasoo wataa waxay fududaynaysaa marka caqabadaha amni ee magaalada ka jira, isagoo awood leh, aan la celinayn, macluumaadkiisoo dhan lahaayo, ayuu insha allahu iskuulka imaan doonaa, ma ka soo dibdhici doono. waxaan rabaa inaan hal kelmad halkaan uga faa'iidaysto. bulshada reer Waaberi waa ogahay inay yihiin bulsho horumar leh, bulsho firfircoon, dadnimo badan, laakiin haddana xagga nadaafaddu ima cajab geliso. maamulka ayaan mas-uuliyaddaas u saarinaynaa. maxaa yeelay annagaa og inay dadku firfircoon yihiin. haddaan se la adeejin dadka oo aan hawsha loo dirin, waa garanaynaa inaysan ayagu aadi karin, ilaa loomaba dirin. taas waa in tallaab laga qaado haddii aan la idmo, wax badan laga bedelo reer Waaberi haddii aad tihiin. waxaan doonayaa aad umahadsantihiin. aad iyo aad ayaad idinkaga mahadcelinayaa. waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo runta. magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir, waa halkii aan ku dhalannay. Waaberina anaa ku dhashay. waxaa ku dhashay madaxweynaha jamhuuriyadda. meeshii aan ku dhalannay inay dhiiqo taal, ay wasaq badan tahay, ay yacni foolxun tahay, ma aqbali karayo. sida lagu yaqaanay reer Waaberi waa inay bilicda iyo nadaafadda ay hoggaamiyaan. bilicdu way muuqataa. waxaa dusheena ka muuqda waa daaro waaweyn. kaalintii bulshada iyo hoggaankii maamulka waa inay muuqataa iyaduna. waxaan doonayaa arrintaas inaad kaalinta idinkaga aadan ka qaadataan haddii alla idmo, aad ku hoggaamisaan degmooyinka gobolka Banaadir, aad ku hoggaamisaan nadaafad iyo dadnimo, inaad ku hoggaamisaan. garabkiinaan taagannahay, waa idinla shaqaynaynaa. mar walba
har iyo habeenba. waxaan rabaa inaan idiin sheego coronavirus ama COVID-19 allaha naga badbaadiyo wuxuu yimiday 2019 dad badan oo naga garaaftay allah u naxariisto haddana 2020 ayuu soo noqday qayb badan oo garaaftay haddana markii saddexaad ayuu soo noqday dhimashaa bilaabatay waa la xanuunsan yahay taxadiraadkii laydin fari jiray ee ahaa in gacmaha la dhaqo face maskiga la qaato la kala fogaado yacni taxadiraadkaas oo dhan ayaan idin farayaa oo laydinka doonaya arrintaas waa sidaasaan u ballannay inay u fusho ayaan rajaynayaa ma raba inaan qoraxda idinku sii daahiyo mar kale waa idinkaga mahad celinaya dadaalkiina wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu